بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدين والدين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ما هو السحر؟ سحر محل إله مركز السحر لو اصطلاح بوليه اصطلاح حق اللغة هي اصطلاح حق مصطلحة شريعة حق اللغة العربية. السحر وحل إلى سحر عمل تقرب فيه إلى الشيطان وعمل الشيطان كاللوغو دوادو وبمعونة منه شيطان بالله كالشانيا سحر بالإله. وحكالو الليلة أيضا سحرك صرف الشيء عن حقيقته إلى غيره شيء وجهيسي سحدها لغا بدلو وسكر لو بدلو مركا واحد مدافع كأن الساحر ننك ساحركه لما رأى الباطل في سورة الحق مركو باطلكي على وجهه أن شيء باطله في عينين مركو سي حق هاقدقاي وخيل الشيء على غيره حقيقته وشيء وجهيسي سحدها كبدلي فهاد مودا مركا قد سحر الشيء عن وجهيسي بشيء كبدلي أي سرفه حقيقتي وسوسه مركا يسيدي سيدي وكبدليه سيكالو كدقاي marka sarfu shay aan wajiyada waxa looga jeedaa shay oo sidii uu ahaa aan la oranay si kale la yiri weeyaan. Aisha waxa laga wariyay radiyallahu anha inay tiri al-arabu arabtu inma sammat as-sihra sihran arabtu waxay sihirka sihir ugu magacawday laanahu yuzilu as-sihata caafimaad ku bedela ila al-marad cudur buu ku bedeli. وقال ابن فارس ninka la yiraahdo wuxuu yiri as-sihru sihirku waxa weeye إخراج الباطل في سورة الحق شيء باطلة أو صحة يعني حق لغا قويا. وقال في المعجم الأوسط وحول السحر ما لطف ما أخذه ودق سحر كوحل إلها وحق جلعسا أو قرصون ضيب وحق له ليري في كتاب كليله معجم كليله المحيط وحول السحر إخراج الشيء شيء لصو سارا ليدها في أحسن معارضه سقروح بدن حتى يفتتنا إلى دتك كيف النوبان marka shay la soo saaro si loogu fidnoobo ayaa la yiraahdaa. xagga luqada carabiga sixir waxa la yiraahdaa السحر في اصطلاح الشرعي حق شريعتنا السحر maxaa la yiraahdaa. قال فخر الدين الرازي إمام الرازي wuxuu yiri السحر سحرku waxa weeyaan هو عرض الشيء يعني وحوي في عرض الشيء مختص بشيء أمر يخفى سببه ويتخيل على غير حقيقته ويجري مجرى التمويه والخداع والشيء لغا قريو أو وحكا لغا قدقو وان حقيقة دي ساهين معناه واحد مدين اللغة دي إيو حق شرعي يسكدو يهين وشيء لغا قدقو حق أو بعض لكنه. قال ابن قدام المقدسي ابن قدام وحيري سحر محاليها هو وحيل عقد وحلق قنتوي والرقى وحلق طفاليها وكلام هذا الباليها يا وهذا البكيري يتكلم به اللقاء الله أو يكتب أمل قره أو يعمل الشيء وعبال السمايي يؤثر في بدن المسحور روح على السحر يومك تأثيرنا يا أو قلبه أما قلبه سوء تأثيرنا أو عقله أما عقله سوء حياليا من غير مباشرة له سوى تصبح بواركن وله حقيقة فمنه ما يقتل وما يمرض مركا سحر كالقوش يجنا ووحشرة وحاكمه كدتك الدلاء كوكسية كدتك حنون أكينا وحاكمه وما يأخذ الرجل عن امرأته نن ويمنعه نن ناكتس نن waxa kamida ku ragga dumarka u diida oo ninku uu xaaskiisa inuu u tagi kareynin aslanba shaawadii oo dhan buu ka tagsinaya. waxa kamida ku ninkiyo naagtiisa kala geynaya ومنه ما يفرق بين المرء وزوجته ninki iyo xaaskiisa buu kala geynaya ومنه ما يبغض أحدهما إلى الآخر mid waxa jira isu cadhaysiinaya mid waxa jira oo yuhabbu bayna itnayn ama labuba isjeclaysiinaya
laba ruux aan aada isu jeclayn ayuuba jacayl ku beerayaa. waxaasoo dhan noocyaha sixirka ayuu ka mid yahay. qaala ibnu qayim wuxuu yidhi huwa murakabun min ta'hiiraati alaswaaji alarwaaxi alkhabiithati wa inficaali alquwa aldabiiciya canha. wuxuu yidhi waxyaala la isaga gegeeyey weeyo arwaax xun oo xun ay ku shaqaysato. macnaha waxa weeye naf khabiita ama xalajeeda naf aan ilaahay ateecin ayaa ku shaqaysata bahalkan sixirka la yidhaha. waxaa kaloo la yidhi huwa itifaaqun bayna saaxirin wa shaytaan. nin saaxiroo wax sixray iyo shaytaan oo iswaafaqaa la yidhaah. oo maxay isku waafaqeen? calaa an yaquuma saaxiru saaxirku inuu u qabo inuu sameeyo bificli bacdi almuxaramaat wax shareecada islaamka laga ogolayn buu samaynayaa. aw shirkiyaad wax gaalnimo ah yuu samaynaya. muxuu samayn? bimuqaabali musaacadati shaytaan inuu ka helo shaydaanka wax musaacada ah ama kaalmo ka helo darteed. wa daacatihi inuu adeeco fiima yadluu minhu iyo shaydaanku inuu u sameeyo wuxuu isagoo kolkaa rabo. marka matalan mithaal ahaan wuxuu ku odhanayaa qur-aanka ku kaadib ku odhanayaa, qur-aanka ku joogsu ku odhanayaa. ya marka waxaasoo dhan muxaram weeyaan. maxaad marka qur-aanka ugu kaadin ood qur-aanka ugu joogsan? liannahu maxaa yeelay waxa weeyaan waxa weeye shaydaankaad ka rabtaa inuu wax kuu sameeyo ama lacag ku siiyo ama wax kula qabto. markaa diintii baad ku tumanaysaa. saa darteed waa wax muxarama kolka horeba oo shareecadeena islaamka aan banaanayn oo la ogolayn. marka horeba xagga diinta shay la ogol yahay maaha. dayb waxyaalaha shaydaanka bacdu wasaa'il saxarati ila taqarubi ila shaytaan, waxyaalaha ay isticmaalaan macnaha nimanka saxarada la yidhaha sixirka isticmaalaa shaydaanka waxyaalahay ugu dhowaadaan waxaa ka mid a waxyaala badan bay isticmaalaan. min asaxarati man yartadi lmusxafa fi qadamayhi wayadkhulu bihi alxamaam. waxaa jira dad shaydaanka kuwa saxarada ah kuwa waxaa jira la gelaya qur-aanka intay lugta ku saaraan masqusha la galaa. wa minhum man yaktubu aayaatin min alqur'aan bilquduraat. waxaa ka mid a qaar waxyaalaha qurmoonka ah xaarka oo kale iyo qur-aan ku qorayaan. waxaa ka mid ah wa minhum man yaktuba bidami lxaydi. qaarkoodna dhiigga xaydkay ku qoraan oo dhiigga xaydka ayay quraan inta soo qaadan bay qur-aan ka dhigayaan oo qur-aan khad bay ka dhigayaan khadka lagu qoro. waxaa ka mid a man yaktubu aayaat min alqur'aan calaa asfali qadamayhi. mid baa lugihiisa qur-aanka ku qoraya. waxaa ka mid a man yaktubu alfaatixata mackuusatan. faatixadu xagga kale u qorayaa oo sideedii saxda ahayn si aan ahayn yuu u qorayaa wey. mackuuska waxaa la yidhaha shay wejkiisi laga bedelo. faatixada bismillahi raxmaan raxiim xaggan ka qori jiray iyo xagga kale u qorayaan foorar. wa minhum man yusallii biduuni wuduu. qaarkoodna wuxuu tukanayaa weyse la-aan. waxaa ka mid a wa minhum man yadillu junuban. junub buu iska ahaanayaa, janaabuu ku joogayaa oon ma qabaysanayaba. wa minhum man yadbaxu lishaytaan. ku shaydaanka wax u gowracaa ka mid a. falaa yadkuru isma allaahi cinda dabxi. markuu gowracayo magaca ilaahay ma sheego. wa yarmi dabiixata bimakaanin yuxadiduhu lahu shaytaan. neefkaa la gowracayna meel buu ku tuurayaa shaydaanku uu yidhi halkaa ku tuur. waxaa ka mid ah wa minhum man yukhaadibu alkawaakiba. xidigaha la hadlaa ka mid ah. wayasjudu xidigaasuu u sujuudaa min duunillaahi ilahay inta ka sokaysa. wa minhum man ya'tii ummahu ow ibnatahu. nin waxaa ka mid a hooyadii ama gabadhiisa wax ka daya shayaadiinta. waxaasoo dhan waa muxaram. maa ninka hooyadii wax ka dayaya oo hooyadii naa ka dhiganaya ama gabadhiisii naa ka dhiganaya waa shaydaan. wa minhum man yaktubu dalmasan. nin mid wax qoray baa ka mid a ay bialfaadin gayr macruufa. yacni kelimooyin aan la aqoon oo gaalnimo ah yuu meel wax ku qorqorayaa. qori iyo dhagax iyo waxbuu ku qorayaa. warkaa waad u jeedaa meesha ay horta nimanka saxarada la yidhaha mareen waad u jeedaa. iyo xukunkiisana hadda ka hor waan sheegnay inuu xaaraam yahay. waxaa sixirka la yidhaha xaaraam weeyaan. ma isweydiin kartaa su-aal sixirku ma jira? ha u jira. nebi maxamed baaba la sixray caleyhi salaatu wasalaam. dad badan baa waxyaalo sixirka u eg ku shaqaysta
ama sixira. haddaan qiso yar soo qaato, ninbaa beri dhexdaasa oo muddo hadda dhowr sano laga joogay wuxuu ka yimid America. waa nin Soomaaliya, halkanuu yimid magaaladan Melbourne buu noogu yimid. qaaco aan darsiga ku aqrinayay oo halkaas ahayd ayuu dumar fara badan isugu keenay oo harada ka badan. anoo maalin caadi u socdo oo darsigeygii ku socda ayaan meeshooda dad ka buuxaan u imid. waxaan idhi war dadkani waa maxay? waxay dhaheen sheekh baa yimid oo dadka dumarka daweynaya. markaasaan ku idhi war dee culimmadu magaalada way joogtay oo intaasoo dhanba hortiis waa la joogay, waxaanoo dumaray ma wada bukaan. su-aal baan weydiiyey, waxaan ku yidhi oo maad wada xanuunsanaysaan? gabar baan weydiiyey, waxaan ku yidhi walaal miyaad wada xanuunsanaysaan? markaatay tidhi waa yacni sheekha inaanu aragnaan rabnaa. marka xanuunba hadduu doono yuuna jirina sheekha ayaa la rabaa in la arko. marka lacag buu ka qaadayey dadka dumarka u imanayay. su-aal baan isaga naftiisi weydiiyey, waxaan ku yidhi war sheekhow culimo kaa soo horreyso magaalada joogtaa jirteen, wax intaasoo cadadaho dumaroo noo yimaada ma anaan arag, maxaa jira? jawaab muuna isiinin fiican. mid kale oo Eritreana ayaan weydiiyey, waan ku yidhi maxaad u timideen meesha iyadana oo carabi ku hadlaysay? waxay tidhi qur-aanka ayaan rabnaa. qur-aankana waxay tii waxay ugu tiri dadku way wada bukaan oo qur-aanka marka lagu akriyo way wada xanuunsanayaan iyagoo dhan. kolkaasaan ku yidhi oo qur-aanku dee waa shifaa, waa caafimaad, ma dadka miyuu xanuujiyaa oo cudur buu u keenaa miyaa? kolkaasay igu tiri oo adigaba haddii lagugu akriyo waad xanuunsan hadda waa la yaabo, waa ku qoslay. waa arrin cajiiba. hada qur-aanku shifaa weeyo ilaahay caafimaad baa laga raadiyaa, laakiin qur-aan baa lagu xanuunsanayaa ma maqal. aduu maalinkii dambe qisada waa iska soo gaabinayaa. ninkii dumarka qol buu la galayay. marka waxa uu sameynayay waan ku daweynayaa buu odhanayay oo wuu ku joogsanayay. islaantu markay usoo gasho dumarku isku taagtaagayay oo lugtiisa ayuu luqunta iyo meelaha kaga joojinayay, lugaha iyo kolkaa oo u garaacayay. yani islaam weynoo da-ah oo dee ma aqaan hadda dadeedu intay ruux weyna ayaa u timid oo dee dumarkii ka mid ahayd. kolkaasuu wuxuu damcay inuu ku joogsado. waxay tiri hooye ruux weyn baan ahay, haygu joogsanin idaa, waxaad igu aqrinay kale un mooye haygu joogsanin. ma una yeerin uu ku soo boodo labada lugood buu kaga joogsaday. islaantii 2 jeer bay firix tidhi, firix bay tidhi, dhabarkay ka jabtay. markay ka jabtay waa lagu kala cararay. markiiba magaalada ugu dambeysay wuu cararay. America iyo xaggaas ku yimid oo cararo mashruuc buu ahaa lacag lagu urursanayay. laakiin waxa aan meeshan qisada u keenayaa dadka Soomaalida ah waa inay fahmaan xaqa iyo baadilka, inay kala fahmaan baa loo baahan yahay. gaar ahaan dumarku si fiican waa inay u fahmaan. iyaga waxyaalahan inta badan involved ku ah oo waxaad arkaysaa way xanuunsanaysaa baa laleeyahay, ninkeedii iyadu baa la isku diray baa laleeyahay, balaayaa la tirinayaa. diinta ilaahay in la qabsado wey walaalayaal, oo qur-aanka maarata la qabsado oo laga tago waxyaalaha xunxune khuraafaadka ah iyo bidcada. hadda ninka aan sheegayo waxay ii sheegtay gabadhi inuu qur-aanka ku aqrinayay masqusha dhexdeeda. markuu qur-aanka aqrinayo masqusha inuu ku aqrinayay bay ii sheegtay. ma qur-aan baa masqul lagu dhex aqriyaa? oo waxa ku tusinaya waa waxa hadda kitaabka aan ka tilmaamayno, waa wax ku tusinaya khuraafa iyo bidco. isku soo celceliyo waxa dawo u ah sixirka inuu ruuxu qur-aanka isku aqriyo, kitaabka ilaahay qabsado, salaada tukado, ilaahay baryo, diinta inaad loo soo noqdo. taasunbaa dawo oo wax kale oo dawo oo ma jiro. sixirkuna waa kufri, waa gaalnimo. ilaahay subxaana wa tacaala qur-aanka wuxuu ku yidhi walaa yuflixu asaaxiru xaytu ataa wamaa kafara sulaymaanu walaakina ashayaatiina kafaruu yucallimuuna annaasa asixra. marka kufri baa lagu sheegay. marka sixirku waa gaalnimo weeyaan cad. hadda ka horna mar baan ka hadlay. ilaahay waxaan ka rajaynaynaa subxana wa tacaala inuu ina xifdiyo. marka waa mowduuc dheer insha allahu tacaala. haddaan fursad helo dersi kale insha allah kasii hadli doonaa. wallahu aclam. sala allah calaa sayidina maxamed wala alihi wasaxbi wasalim.